siyaasi saleeaan ibraahim oo kamid ah siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo maanta telefishinka caalamiga City Cable kula hadlay hotel cafe ee magaalada Burco ayaa ka hadlay waqtiyadii kala duwan ee uu soo maray dalkani Soomaaliland sidoo kale waxa uu halkaasi hadalay isugu jira talooyin iyo dardaaran u soo jeediyay xukuumada cusub ee uu hogaaminayay mudane Musabiixi Cabdi waxaana ku dhiiri galiyay inay la tartamaan wadamada horumar isagoo amuurtaasi ka hadlayna waxa uu yidhi sida tan marxaladihii uu soo maray dalku shacabka reer Soomaaliland waxay yiraahdaan 60kii waxba inaga khaldamay 19kiina waxba inaga khaldamay doorashadii dhaweytana waxba inaga khaldamay 60kii waxa inaga khaldamay tagistii xamar aynu tagnay ee bila shuruud ahayd 19kiina waxa inaga khaldamay jabhadihii aynu khayrkeenahay Itoobiya iyo Eritrea hogaamiyaan wanaagsan bay heleen inagu sameeynaan helin hogaamiyaal wanaagsan waana fawda aynu galnay waana sida aynu uga hadhnay dadkeen isku filka ahayna labada jabhado Eritrea iyo Itoobiya doorashadiina waxba inaga khaldamo doorashadii waxa inaga khaldamay waxa weeye kulmiyo 7 sano corruption sameeyay in mar dambe lagu abaal mariyo kursiga madaxweynenimo ma yahayn intii garanaysay ama aqoon lahaydna may u codeyn kulmiye ee wax qiyaasi karaysay balse waxa u codeeyay maato iyo ciyaal qabiil lagu kaxaystay marka maanta waxaan u soo jeedinay madaxweynaha dariiqii uu raacay kulmiye ee ahaa corruptionka iyo qabyaaladda inuu ka leexdo oo dariiq sax ah oo bulshada horumar lagu gaarsiinayo uu bulshada u duwo waxaan intaa ku darayaa taladu waxa idinku soo noqotay maanta idinkoo 70 jir 40 jir ayaa khalad ku samaysan markii 19kii maantana 70 jir ayaa taladii mar labaad ku soo noqoteen marka waxaan leeyahay oo aan waana idinku leeyahay dhaxal ka taga oo noqdo hogaamiyayaashii Aasiya ee horumarka dalkooda gaarsiiyay kana faa'iideysta wixii aynu soo marnay ee khaladaadkii dhacay maanta jaamacadana waa ka baxdeen waliba madaxweynuhu jaamacadda khilaafaadku ka baxay marka waxaan leeyahay taariikh wanaagsan oo ah hogaamiyayaashii Aasiya iyo Singapore iyo Malaysia sidoodii oo kale dhaxal umada uga taga وعبد الرحمن عيسى تلفزيون عالمي City Cable magaalada Burco